Shalom dhammaantiina kusoo dhawaada mawduuceeni jacaylka familka qaybtiisa labaad. Inkastoo badqaba ruuxu soo dan uu bukan maayo oo qalbigii bud weyn lala dhacaa soo burburi maayo. adduunyadan geesiga gulaha aadmigu tishado jacaylka gardaadiyo guriga aan wuxuuga jirin samuhu gabaabsiya Marar badan waxaa dhacda in ilmahaagu dhaawac jir ahaaneed uu soo gaaro, dabadeedna ay isbitaalka u qaado si wax loogu qabto loola tacaalo. Laakiin waxaa jira dhaawac nafsi ahaan u soo gaara carruurta in badan. Ishuna aysan qaban karin dhaawacaas carruurta soo gaartay. Marar badan ay dhici karto dhaawacaas carruurta soo gaaraysa inay ka soo gaarto barbaariyaashiisa sida labadiisa waalid, macallimiintiisa wax baraysa, eheladiisa. Waxaa laga yaabaa dhaawaca ilmaha jir ahaan usoo gaara inuu ka caafimaado, ka bogsoodo. Laakiin dhaawaca qalbi ahaan usoo gaara waxaa laga yaabaa marar qaar in badan inuu la noolaado, uu la koro, uu la noolaado dhaawacaas aysan weligiisa uusan iloobin. Marar badanna waxaa dhacday ilmaha la kora dhaawaca nafsi ahaan usoo gaara markay weynaadaan in mashaakilka adduunyada iyo dhibaatooyinka la barbar dhigi waayaan oo la falgeli waayaan oo challengeska iyo caqabadaha nolosha wax ka qaban waayaan. Maxaa yeelay waxay kusoo koreen dhaawac nafsi ahaaneed oo saameyn ku yeeshay noloshooda. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago 4 arrimood ilmaha dhaawac u gaarsiiya, nafsi ahaan dhaawac u gaarsiiya, oo ay tahay waalidiinta, macallimiinta iyo familka carruurta ku hareereysan ee la nool yihiin inay ka digtoonaadaan 4 shay. Arrinta ugu horeyso waa qaylada. In badan waxaa dhacda in waalidka ilmihiisa ku qayliyo. Qaylada daraasad la sameeyay ayaa sheegayaan in ilmaha maskax ahaan korriimihiisa maskaxeed ayay hoos u dhigtaa oo hagaasisaa. Oo runtii aad ayay muhiim u tahay qaylada in ilmaha laga daayo oo aan qalbigooda la dhaawicin. Arrinta labaad ee ilmaha nafsad ahaan u dhaawacda ama burburisa waxay tahay waa barbardhiga. Marar badan waxaa dhacda in ilmihiisu isbarbar dhigo waalidka oo yiraahdo hebel baa inta oo xisaabta keenay, maxaa adiga u keeni weysay? Biology intan ayuu keenay, maxaa adiga u keeni weysay? Ama waxaa laga yaabaa in laba ilmo kale ee iskuulka isla dhigtaan ama ay daris yihiin. Hebel sidiis maxaa u noqon weysay? Arrintaas runtii ilmaha kalsoonida nafsadooda ay ku qabeen ayay hoos u dhigtaa. Ilmaha walaalaha ah haddii la isbarbar dhigana waxay ka abuurtaa colaad ku saleysan xiqdi, xaasidnimo. Ilmaha waa kala intelligence, garaadkooda iyo mawhibaadkooda way kala duwan yihiin. Mid inuu xisaabta ku wanaagsan yahay laga yaabaa, mid inuu biology ku wanaagsan yahay laga yaabaa. So in la isbarbar dhigo runtii ma ahan mid fiican. Carruurta uma roon in la isu barbar dhigo, carruurta wax fiican ma aha. Barbar dhigistu baraarujin maaha, waa burburka nafsad ahaaneed ee carruurta, bala mooyaane barako lagama dhaxlo. Shayga saddexaad ilmaha nafsad ahaan u burburisa ama dhaawac u keenta garaadkiisa waxaa weeye gulgulka. In ilmaha lagu baqdigeliyo haddii sidaa ku yeeli waayo, haddaan aabbaha kuu sheegi waayo, haddaan macallinka kuu sheegi waayo, oo ilmihii macallinkiisa iyo aabbihiisa lagu cabsiiyo ama maanta oo dhan loo dhaarto. Runtii ilmaha naf ahaan bay u dhaawacdaa oo arrintaa waxaa weeye waxaa suurtagal ah mararka qaar in macallinka mise aabbaha lagu cabsi gelinayo inuu naco. Sidaa daraaddeed ma wanaagsano in ilmaha cabsi lagu abuuro. Cabsidu geesinimo lagama dhaxlo. Dhabar jebin ka daran cabsidu. Ka daaya carruurtiina cabsida. Arrinta afraad ee ilmaha naf ahaan u dhaawacdo aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo waxaa waaye inaad ku tiraahdo erey wax dhaawaca. Runtii ereygu aad buu u awood badan yahay.
marka ilmaha ku tiraahdo nacas, doqon baa tahay, fulay baa tahay, meelaadan ka filaynin oo adiga wax muhiim ereyga kula lahayn, ayaa waxaa laga yaabaa in maskaxda qeyb weyn ay ka buuxiso cunuga, mustaqbalkiisa dambena ay saameyn ku yeelato. Ilmuhu intay yaryar yihiin malahan qeybta wax filter gareysa, malahan wax bay record gareeyaan, waxayna aad iyo aad u rumeeyaan wax walba oo ay maqlaan oo adiga ku tiraahdo ay aad iyo aad rumeeyaan. Marka ereyga oo aad ka oranayso ka fiirso, waayo ereyga aad buu u awood badan yahay. Waa halkii shaacirka Soomaaliga uu lahaa, afku wuxuu la xoog yahay magliga xooda kaa jira. Marka ka fiirsada caruurtiina ereyada ku leedihiin, una hiiliya caruurtiina markasta erey wanaagsana cunugaada ku dhahdid, waa markasta oo confidence iyo maaragtay identitygiisu uu aad u wanaagsanaado. Waayo waa record garee markuu cunuga leeyahay, macnaha filter ma lahan oo ma kala yaqaano ereyga nooca wanaagsan iyo nooca xun, just wuxuu record gareena. Marka waa wadana caruurtiin u hiiliya caruurtiin oo ereyo aad iyo aad u wanaagsan u isticmaala caruurtiina. Waxaa soo gaarnay gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeena. Waxaa rabaa inaan kusoo xiro aayad kitaabka quduuska ku jirto, waa kitaabka Mahmaayadii jabtarka 18 aayadda 21. Geeri iyo nololba waxay ku jiraan itaalka carabka, oo kuwa jecelkuna waxay cuni doonaan midhihiisa.